بسم الله الرحمن الرحيم سلو هذا لما أرتدي قيمة يقايه له وحن أحب على سعيد يوسف محمد مرول بحسوق تبيه مقالان إسلامية بالشدة وحبنا أي كسعيد تونان كان هو متك مدام مقالات طحناء أو أن كجهد ديرو مادة كمسترجع جار فصل كفون فور أن أطيارني أرتدي فون فور كديجتا أما جود أهان أرتدي ربطي إن إسكاليسان المجا كمسترجع ولبا متك مركز لو يقانا أورجانيك كمستري ولي وحنكون كودي جرنا غيبت لو يقانو جفتر كوبات waxaan ka soo baxnay wax la yiraahdo alkeniska waxaan kaga soo hadalnay sida loo magacaabo falgalada uu sameeyo isomerism iyo waxyaabo kale ama isku naanaysnimada ayaan kaga soo hadalnay soo marka muuqaalkan waxaan ku qaadan dhigi doonaa wax la yiraahdo alkeniska ee markaas ku qaadan dhigi doonaa alkene wax la yiraahdo hydrocarbonada labada dabarka leh ayaa waxa loo yaqaanaa alkenis soo inta aanan aadin alkeniska waxaan muuqaalkii ugu dambeeyay aynu kaga soo hadalnay reactions of alkene ayaan kaga soo hadalnay yani falgalada ay sameeyaan hydrocarbonada ama alkenis leh falgalada ay sameeyaan hal dabarlayaasha waxaan soo sheegnay in laba falgal ay markaas sameeyaan falgalka koowaad waxa la yiraahdaa substitution ayaan markaas soo sheegnay waa falgalka yani huwa hal shay ama shay in markaas ama hal element ama hal atom in meeshii laga bedelo atomyada in la isku bedelo ayaa waxa loo yaqaanaa substitution falgalka labaad waxaan dhahnay waxa loo yaqaanaa combustion reaction falgalka gubashada ee marka la yiraahdo falgalka gubashada ee alkeniska waxaan sheegnay in laba loo qeybiyo labadana waxaan dhahnay complete iyo sidoo kale incomplete ayaan sheegnay gubasho dhameystiran iyo sidoo kale gubasho aan markaas dhameystirnayn gubashada dhameystiran waxaan sheegnay in lagu yaqaan maxay waxa soo baxay carbon dioxide iyo water ay markaas soo baxayso halka qaybta incomplete ka ama gubashada aan dhameystirnayn aan sheegnay inuu soo baxay carbon monoxide ama carbon iyo sidoo kale water ay markaas soo baxay sida aan soo sheegnay complete ka ama falgal gubasho oo dhameystiran wuxuu ku dhici karaa alkane ayaa wuxuu la falgalaa maxay sufficient oo oxygen ayuu la falgalaa markii alkane ama hydrocarbon hal dabar la ah oo la falgalo oxygen ku filan waxa sameysmayo carbon dioxide iyo sidoo kale iyo water nooc falgalkaas ama qaabkaas oo kale waxa la yaqaanaa complete combustion ama gubasho dhameystiran incomplete ka asal ahaan wuxuu ka dhalanaa maxay alkane iyo waxa falgal sameynaya maxay insufficient oo oxygen ayaa falgal sameynayso after that carbon monoxide iyo water ayaa soo baxayo ama carbon dioxide iyo water ayaa markaasi meesha ka soo baxayso oo ayaga markaasi muhiimadooda markaasi leh soo qaybtan waxaan ku qaadan dhigi doonaa alkeniska marka aan ka hadlayno horta ereyga alkene wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb horgala ah iyo qayb gadaalgala ah ama dibgala ah qaybta horgalaha waxa la yiraahdaa waa alcohol alk waa soo sheegnay macnaheedu waxa way waa hydrocarbon ama laakiin in waxa soo sheegnay inuu macna ahaan uu la mid yahay maxay double bonds markaas uu la mid yahay ayaan markaas hore u soo sheegnay soo marka alkeniska ayaga waxay yihiin kuwa markaas alkeniska ay cagsi ku yihiin ayaga waxa lagu yaqaanaa waxay leeyihiin laba dabar ay markaas leeyihiin soo marka alkeniska waxaan ku qeexi karnaa waxaan leenahay alkene waxaan ku qeexaynaa inay yihiin horta unsaturated hydrocarbons waaye waa hydrocarbono aan dheragsaneyn waaye kuwaasoo containing ka kooban maxay double bonds laba dabar kaasoo between u dhexeeya maxay two carbon atoms laba carbon markay u dhaxayso laba carbon kamid ah carboniska uu ka kooban yahay isku dhiskaas ayaa wuxuu ka kooban yahay laba dabar sida daraadeed waxaan leenahay alkene markaas qeexitaankaas ay markaas siinayna alkeneka magac kale loo yaqaanaa waxaan leenahay alkenes also known as magac kale ayaa loo yaqaanaa magac kale ayaa markaas loo yaqaanaa waxaan uu magaca labaad uu yahay olefins ayaa loo yaqaanaa sababta magacan olefins lagu bixiyay waxay tahay because maxaa yeelay they form waxay sameynayaan oily liquids dareere saliid ah ama dareere oo saliid ay markaas sameynayaan sida daraadeed ayaa waxaa loogu yeeraa maxay olefins markaas loo yaqaan
waxay leeyihiin waxa la yiraahdo general formula waxa leenahay the general formula qaacidada guud the general formula ama the general formula of alkene waxay noqonaysaa waa C sub n H2n ay markaas noqonaysaa qaacidada guud ay markaas leeyihiin tirada carbonisk oo laba lagu dhuftay kaliya alkene waxay ahaayeen tirada carbonisk oo laba lagu dhuftay laba lagu daray ahaayeen ama laakiin alkeneska tirada carboniska oo laba lagu dhuftay kaliya waa the first member oo kale alkene marka la joogo the first member in alkene marka la joogo يعني midka ugu horeeya waxa la yiraahdaa waa ethene ama ethylene midka doonta leh marka eth ayaa midka koowaad markaasi ah ama laga bilaabo marka la joogo alkeneska marka la joogo soo marka hadii tusaale tirada carboniska laba ay noqdaan tirada hydrogenta ma ay noqonaysaa laba ku dhufo yani alkenka marka la joogo laba dabarlayaasha waxay noqonayaan waa 4 way hadii tirada carboniska 5 ay noqdaan tirada hydrogenta waxay noqonaysaa waa 10 hadii tirada carboniska 6 ay noqdaan tirada hydrogenta waxay noqonaysaa waa 12 soo marka molecular formulada qaabkaas ay markaas loo sii dhisaa number of carbon ama tirada carbonta iyo hydrogenta oo alkene uu leeyahay waa la raadin karaa iyada oo markaas la isticmaalayo qaacida guud oo markaas isaga uu leeyahay qaacidada la isticmaalo marka la raadinayo tirada carbonka iyo hydrogenta waxay markaas tahay H waxa lagu helaa 2n ayaa markaas lagu helaa yani waxa way waa alkene marka la joogo alkene marka la xisaabinayo maxay tirada carboniska iyo hydrogen n iyo h marka la raadinayo tusaale ahaan waxa lagu siiyay tirada carboniska iyo waxa lagu dhahay waa 30 hydrogenta ma qeyn noqonaysaa hydrogenta waa iska taqaanaa qaacidada waxay ahayd waxa hadda waxaan haysanaa meeshan n waxaan haysanaa waa 30 waxaana loo diray h ayaa markaas loo diray qaacidada waxay ahayd h waxa lagu helaa 2n soo marka h waxay la mid tahay 2n waxaan haysanaa n qiimaheedu waa 30 laba lagu dhuftay 30 soo marka qiimaha hydrogenta waxay noqonaysaa waa 60 marka 30 marka laba lagu dhufto meesha waxay noqonaysaa waa 60 soo marka 30 carbon oo laba dabarla ah waxay u baahan tahay 60 hydrogen ay markaas u baahan tahay yani si ay u noqoto mid dhameystiran sidoo kale waxa lagu siiyay tusaale 100 hydrogen ayaa markaas lagu siiyay 100 lagu dhahay carbon ayaa markaas lagu diray imise carbon oo laba dabarla ah ama imise carbon oo laba dabarla ah ayay markaasi 100 hydrogen imise carbon oo hal laba dabarla ah ay markaas dhirtin karaan marka qaacidada waxay ahayd h waxa lagu helaa hadda anaga waxa naga maqan n ayaa naga maqan hadda la soo carbon n waa isku mid carbon n waa isku mid soo marka h waxa lagu helaa qaacidada waxay ahayd 2 ku dhufsan n h hadda waa haysana oo qiimaha h ka waa 100 way 100 waxay la mid tahay 2n soo marka n kaligeed aan rabna maadaama n kaligeed aan rabno labada dhinac waxaan u qeybinaynaa waxa n la socdo oo laba ah sida daraadeed n waxay la mid tahay 100 marka laba loo qeybiyo waa 50 soo marka hadii tirada hydrogenta ay noqoto 100 tirada carboniska waxay noqonayaan maxay 50 ay noqonayaan soo marka qaabkaas iyo markaas loo raadiyaa marka la joogo alkeneska number of carbon iyo number of hydrogenta qaabkaas iyo markaas loo raadiyaa markan waxaan aadaynaa wax la yiraahdo classificationka waxa la rahay classificationka ama ablaynta alkeneska markaan ka hadlayno waxaan u qeybinaynaa laba qaybood labada qaybood waxa la yiraahdaa symmetrical iyo waxa kale oo loo qeybiyaa asymmetrical iyo asymmetrical farqi u dhaxeeya horta alkenka waxaan ku naqaanaa maxay laba dabar inuu markaas leeyahay marka waxa waaye labada dhinac waxa ka jira marka ay same yihiin ama equal ay yihiin waxaan leenahay symmetrical tusaale CH3 tusaale hadeertan labada dabar waa kana waxa waaye meeshan waxa taalo afar carbon iyo 8 hydrogen ayaa markaas meeshan taalo sida daradeed marka 1 2 3 4 way 4 laba ku dhufo la qaacidada waxa ay laba ku dhufay ahayd 3 hal ku dar waa 4 hal ku dar waa 5 3 ku dar waa 8 soo marka labada dabar fiiri labada dabar
inta labada dhinac waxa ka jiro dhankan waxa ka jiro 1 2 dhankan waxa ka jiro 1 2 soo marka maadaama labada dhinac waxa ka jira same ay yihiin waxa leenahay waa symmetrical soo marka symmetrical goorma leenahay yani alkeenka goorma ayaan symmetrical leenahay marka labada dabar labada dhinac waxa ka jira ay same yihiin asymmetrical marka cagsi waaye asymmetrics waxa waaye marka labada dhinac ama labada dabar waxa ka jira ay markaas yihiin kuwa markaas kala duwan tusaale CH2 CH3 tusaale meeshan hadeertan waxa yaala 1 2 3 4 5 waxa waaye 5 markaas ay markaas meeshan noo taala hadii markaas aad eegtid tirada hydrogentana waxay noqonaysaa maadaama 5 carbon ay tahay tirada hydrogenta waxay noqonaysaa waa 10 3 hal ku dar waa 4 4 hal ku dar waa 5 5 laba ku dar waa 7 7 3 marka lagu daro waa markaasi 10 soo marka double bondiga waa kana ama labada dabar waa kana labada dabar marka dhankan waxa ka jira 2 carbon dhankan waxa ka jira 3 carbon sida daraadeed maadaama ay kala duwan yihiin different ay yihiin labada dhinac waxa ka jira maadaama labada dabar labada dhinac waxa ka jira maadaama ay kala duwan yihiin waxaan markaas leenahay asymmetrical soo marka symmetrical iyo asymmetrical ayaa loo qeybiyaa alkeeniska marka waxaana laga fiiriyaa maxay wax la yiraahdo double bondiga labada dhinac waxa ka jira marka intaynu ku soo gabagabayna muuqaalkan intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh